السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا ونعكسن ومر لبعض يتلوين كني كوكبنا مالين لها أها. طبعا وحين ما أنت كشاكين دونا قصوين كي تدكي صوم ريدوني ذن سامين تقولها طبعا لكن مركي هره دي ماذا قيحان لقله ريمد دجال قيحان لقله ريمد رياشة بدن لقله ريمد in fara badan lala jihaaday laga soo horjeestay laakiin markii dambe loo geliyay taashka la hor keenay ubaxiyo loo bixiyay magacyo waaweyn lagu xusay goobo taariikhiya oo ilaa maanta magacyadoodii ay ka sii muuqdaan. haddaba walaalkii Soomaaliyeed iyo walaashay Soomaaliyeed haddii aad doonaysid inaad reebto taariikh maguurta ah, haddii aad doonaysid inaad ka tagto magac iyo mansab ummadda Soomaaliyeed oo dhan wax u noqdo hadhow toole oo lagu daydo taariikhda aad baaldahaba ka gasho, waxa muhiim ah wax kastoo cusub oo aad bilowdo inaad ku tala gasho inuu leeyahay challenge, caqabad inuu leeyahay. wax kastoo cusub oo aad bilowdo oo bulshadaada iyo deegaankaagu aanay hore u aqoon ama aan hore looga isticmaali jirin, haddii aad la timaado waxaa kugu badan doona in lagu challenge gareeyo, in lagu caqabadeeyo, in diidmooyin qayaxan lagala hor yimaado, in dagaal lagu bilaabo, in sidoo kale la isku dayo inaad iska dhiibto arrinka oo aad ka joogsato. laakiin mar walba aad adigu ku adkaysato, mar walba adigu aad ku celceliso, mar walba adigu go'aankaaga ay noqoto, mar walba adiga dhiiranaantaada iyo geesinimadaadu ay noqoto inaad hawshaas sii wado oo aad ka midho dhaliso oo yoolka aad adigu leedahay aad gaadho, dabcan waxaa rumoobaya riyooyinkii adiga gudahaaga ka guuxayay, waxaana beenoobaya oo meesha ka baxaya waraabahumaagii iyo weliba turaanturooyinkii iyo turxaamihii iyo weliba arrimihii lagu waday cuslaa ee adiga lagugula doonayay inaad isdhiibto, arrinkanna aad ka hadho, farahana aad ka qaado. haddaynu in yar dib ugu noqdo taariikhda, waxaynu wada ogsoonahay diinteena macaan ama diinteena suuban ee maanta aynu ku wada naaloonayna islaamka ah, ee runtii inagu aynu ku dhalanay, aniga iyo adiguba aynu ku dhalanay islaamnimo. intii markii la soo diray waxaynu ogeyn bulshadu qaabkay u noolayd waxay ahayd free style, micnaha nolol daba furan oo aan lahayn marjic iyo meel loo noqdo, oo aan lahayn sidoo kale marxalad iyo diin ay ku tiirsan tahay. laakiin waxay dadkaasi ku tiirsanaayeen ku tiri kuteen iyo quraafaad iyo wax laga soo gaadhay aabayaashood iyo awyaashood oo markaa caado dhaqameed dad iska leeyihiin, laakiin aan ahayn waxyi iyo diin rabbi uu soo diray ama uu soo dejiyey. laakiin maalintii la soo diray suubanaheeni sallallahu alayhi wasallam la soo diray waxaa lagala hor yimid diidmo qayaxan, sababtoo ah dadkani may aqoon in la istaahiriyo, in la nadiifiyo jidhka, in la cibaadaysto, in ilaahay abuuray loo sujuudo oo dee isaga la caabudo may aqooni. waxay yaqaaneen in la caabudo asnaamta iyo dhagaxaanta iyo weliba waxyaabo ay dhoobo ka samaysteen iyo sida iyagu u nool yihiin ay doonayaan. laakiin maalintii la yidhi dariiqani waa khaldan yahay, naar baanu idinku hogaaminayaa, maanta laga bilaabo dariiqii saxdaa waa diinta islaamka, idinkaana idin tahay nolosha dhabtaa ee ku soo noqdo raaca, dagaal bay kala hor yimaadeen, diidmo qayaxan bay kala hor yimaadeen, waxay kala hor yimaadeen dagaal toosa iyo mid dadban labadaba. marka ashqaastii ama ummaddii markaa hogaaminaysay diinteena islaamka ee raacday nabiyullaahi maxamed sallallahu calayhi wasallam, waxaynu wada ogsoonahay inay dagaal badan galeen, inay dadaal badan sameeyeen, inay juhdi badan abuureen, inay istaragal badan iyo sidoo kale dhabar adayg iyo sabir badan inay la yimaadeen. markay ku sabreen diintii ay fidinayeen, markii ay ku sabreen beddelkii ay noloshooda dadkan beddelayeen, waayo mid iyagoo keliya umay dagaalamayn shakhsiyan inuu qofku badbaado iyo inuu janno galo umay dagaalamayne, waxay u jihaadayeen inay dadkan oo dhan noloshooda beddelaan oo ay dariiqa toosan ku soo leexiyaan oo iyaguna ay ajar ka helaan
dadkaasina ay ka badbaadaan naarta iyo cadaabta rabbi uu u ballan qaaday qof kastoo kaafira ama ka gaaloobay diinta islaamka ama ka baxay ama iska diiday ama iska indhatiray. sabir badan iyo dulqaad badan kadib, dagaal badan oo lagu waday kadib, mid toosa iyo mid dadbanba waa lagu qaado, waynu ognahay. laakiin markii loo sabray wixii la waday, diintii la waday markii loo sabray, waxaa ka dhalatay inay dadkii oo dhan islaamaan, in diintii la wada qaato, in dadkii dhabarka lagu siday iyo kuwii dhalanayayba ay islaamnimo raynrayn leh lagu soo dhaweeyo, kadibna ay ilaahoodii caabudaan, kadibna ay guulo janno iyo guulo adduun labadaba ay gaadhaan. maxaa keenay marka qodobkaas in guusha intaa leeg ay soo hoyato? waxaa keenay in dagaalka intaa leeg lagala hortago oo jihaad lagu soo qaadiyo, dagaal dadban iyo mid toosaba. waa fikradda cusub iyo arrinka cusub ee dadka lagu soo kordhiyey baa iska lahaa. dadkii waday arrinkaa cusubi markay u sabreen iyagoo dunida ku nool ayaa loogu bishaareeyey jannooyinka, oo jannatul firdaws al-aclaa loogu bishaareeyey inay guusha intaa leeg hantiyaan, oo dabcan bishaarada intaa leeg la siiyana waxaa keenay ku celcelinta xaqa oo adkaysiga iyo sabirka ay ku dareen, iyagoo jihaad iyo dadaal naf iyo maalba ku bixinayay inay guul ka gaadhaan, inay badbaadiyaan walaalahooda kale si ay jannooyin u galaan, iyaguna jannooyinkooda u hantiyaan. waxaan u soo qaatay tusaalaha weyne cadiimka inagoo Soomaaliya oo dhalinyaro Soomaaliyeeda, haddii aynu fikrada la nimaadno ku cusub adduunkan, ama fikrada adduunka ku cusba aynu soo dhiraandhirino oo aynu waddankeenii keennay, oo aynu ummadda leenahay isbeddel dhaba sameeya, isbeddel dhaqaale sameeya, isbeddel nololeed sameeya, aqoon barta oo idinku noloshiina horumariya, kuma imanayso inay dadku inagu soo dhaweeyaan dhoola caddayn, dhiirigelin, farxad iyo sidoo kale raynrayn in laynagu soo dhaweeyo. waa inaynaan sugin, laakiin waa inaynu sugnaa inaynu inagu halgan gallo, nolosheenna aynu ku xoraynayno, oo ayaynu kaga xoraynayno shaqaalanimada, oo aynu kaga xoraynayno sidoo kale waxa loo yaqaano naftu inay adiga ku fadhiisiso oo ay kaala dagaalanto horumarka, oo aynu kaga xoraynayno social mediaha inagaga baxayo waqtiga faraha badan leh, aynu kaga xoraynayno fadhiga faraha badan leh maqaaxiyaha dhexdooda, aynu kaga xoraynayno siyaasadda iyo waxaan meel weyn inoo wadin ama meel fog ina gaadhsiinayn, inaynu kaga tashanno aayaheenna iyo waqtigeena aynu kaga tashanno inaynu isbeddel dhaba oo is-xorayna aynu gallo, kuna sabirno si magacyadeenna iyo hadhow toole carruurteennuba ay ugu noolaadaan maamuus iyo manfac iyo magac weyn ay ugu noolaadaan iyo meel qurux badan. waxaa muhiima inaynu fadhiga ka kacno, inaynu wadajir ku shaqayno, inaynu u sabirno dadaalka iyo horumarka aynu samaynayno maanta haddaynaan waxba haynin, laakiin aynu ku niyadsannahay bila kadib, sanada kadib, isbeddel dhaqaale, isbeddel nololeed iyo isbeddel qurux badan inaynu nafeena u horseedi doono haddii aynu jihaad iyo nolol iyo raadis nololeed oo aynu u dagaalano haddii aynu keenno, oo waqtigeena yada quruxda badan leh maalintiina soo maraya aynu siday tahay uga faa'iideyno, inaynu gaadhayno guulo waaweyn oo la taaban karo. maanta waxba ma hayno, jeebabkeenu waa madhan yihiin inta ugu badan dhalinyarada Soomaaliyeed, laakiin waxaa muhiima inaadan maanta xanuunka jeebkaaga aanad ku mashquuline, aad ku mashquusho berri toolana inaad sidaa ahaanin, inaanu berrina sidaa ahaanin, inaad ka shaqayso ayaa mudan. waxaan idinku soo dhaweynayaa oo aan idinku dhiirigelinayaa fursadaha waaweyn ee ganacsi ama fursadaha waaweyn ee waxay naga beddelaya nolosheenna inaynu xagga hore ka qaadanno, kuna sabirno intay dadkeenu inala fahmayaan, intay dadkeenu inala garanayaan, intay kasoo dhex baxayaan dad ina dhiirigeliya, inaynu inagu dabada haysanno, waqtina aynu gashanno, waqtigeennana aan ka faa'iidaysano. wabilaahi tawfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.